bismillahi rahmaani rahiim casharka waxaan ku baran doonaa unit circle ka wuxuu naga saacidi doonaa special angles kii iyo sidoo kale marka angaladana ay dhacaan x y dusheeda sida marka taa 0 90 270 iyo 180 oo kale unit circle sababta loo yiri maxay tahay unit macnaheedu waa maxay waa 1 unit oo loola jeedo radius-ka ama hypotenuse-ka dhererkiisa kuwa kan dhammaan dhererkoodu waa 1 unit weeye ama 1 cm oo kale tusaale ahaan circle xagee ka timi maxaa yeelay hadaanu wareejino radius-ka oo uu soo wada maro afarta waaxood ama afarta quadranti circle buu sameyn doonaa laba tusaale oo kooban baanu ka bixin doonaa marka hore intayna u gelin halka triangle baan noo sawiran waxaan rabnaa inaan soo saarno functionka sin iyo cosine sin waxaan naqaanaa inay tahay opposite of hypotenuse xagashata marka opposite-keedu waa 4 hypotenuse-kuna waa 5 sin macnaheedu waxa 4 over 5 weeye cosine baa ku soo hartay cosine iyadu waa adjacent over hypotenuse xagashatan adjacent-geeda ama dhinaca deriska la waa 3 over 5 si awgeed cosine marka halka goorta marayna marka waxaan rabnaa in triangle-ka inoo sawiran hypotenuse-kiisa aanu ka dhigno 1 hadda tusaale waa 5 cm weeye dhererkiisu 5 cm hadii uu yahay marka 7 uga dhigi karnaa waxaan 1 uga dhigi karnaa inaan 5 u qaybino saad marka 5 u qaybi si uu u noqdo 1 way 5 u qaybi marka muxuu noqonayaa 1 hypotenuse-ka hadda 5 u qaybiso dhinacyada kale waa inaan 5 u qaybisaa dhinaca kale buluuga dhererkiisu isagoo 4 cm haddaan cm inay ku cabirayaan ka soo qaadno 4 over 5 uu noqonayaa goorta 5 u qaybiso dhinaca hoose waxa uu qaybisaa iyadana 5 waxay noqonaysaa 3 over 5 marka waxaan isweydiinaynaa halka pointiga xy qiimayaasheedu muxuu noqonayaa marka hadda u fiirsato marka qiimaha taaga waa y qiimaha jiifka ana waa x weeye taa macnaheedu waxa marka qiimaha x waa 3 over 5 dhererkeedu waa 3 over 5 qiimaha y-na waa maxay waa jooga oo ah 4 over 5 halkan marka maxaa kaaga soo baxay 3 over 5 kan wax kala ma aha waa qiimihii cosine haday aan soo saarnay 4 over 5 kan waa maxay waa qiimihii sin weeye halkan maxaan ka aragnaa marka halkan waxaan ka aragnaa hypotenuse-ka goorta dhererkiisu uu 1 noqdo point walba oo halka ku sameysma goorta hypotenuse-ku uu 1 yahay waa qiimihii cosine iyo qiimihii sin weeye x y wax kala ma aha marka waxaan leenahay marka hypotenuse-ka haduu 1 noqdo pointiga halka ku sameysmaaye qiimaha hore x-ta waa qiimihii cosine ee angle-ka qiimaha y-dana waa maxay waa qiimihii angle-ka oo sin ah su'aalo kale haday angle-ka nooma sheegin hadda angle-kii waa noo sheegay waa 30 aan soo saarna marka sin iyo cosine sin waa opposite of hypotenuse 30 opposite-keedu waa 1 waa 1 over 2 marka cosine 30 waa ku soo hartay cosine 30 iyadu adjacent of hypotenuse 30 waxa adjacent ku ah √3 waa √3 over 2 aan ka dhigno triangle-ka hypotenuse-kiisa 1 si aan 1 uga dhigno marka waa in 2 kan 2 loo qaybiyo 2 u qayb waa 1 dhinac walba u qayb marka 2 hadaan 1 2 u qaybano 1 over 2 √3 waxa u qaybisaa 2 waa √3 over 2 weeye haday waxaan soo naqay marka hypotenuse-ka hadii uu 1 noqdo dhererkiisa pointiga halka ku sameysmaaye qiimaha hore ee x-ta waa cosine qiimaheedii waa cosine 30 waa inuu noqdo qiimaha y-dana waa qiimihii sin aan tijaabina marka pointiga halka xy x waa kan waa qaybta hoose waa √3 over 2 qiimaha y-dana waa maxay waa ka jooga ah waa 1 over 2 hadaa calculator-ka geliso marka qiimaha hore √3 over 2 wax kala ma aha waa cosine 30 weeye hadaan soo sheegno waa halka hoose 1 over 2 kana waa sin 30 markaan soo koobno marka hypotenuse-ka haduu 1 noqdo point walba halka ku sameysma waa cosine iyo sin taa macnaheedu waxa weeye hadii hypotenuse-ka dhererkiisu uu 1 yahay oo aan ognahay waxaan sameyn karnaa anaga aan iswareerin waxaan raadin karnaa qiimaha angle-ka ee sin iyo cosine x-ta waxay noqonaysaa qiimaha cosine ee angle-ka y-duna waxay noqonaysaa qiimaha sin ee angle-ka tusaalahaan adeer waa cosine 30 iyo sin 30 weeye aanu unit circle-ka u galna marka ugu horeyn waxaan ku hormaraynaa marka ay x iyo y dul dhacaan horta waxaan niri waa unit waa 1 cm kuwan dhererada arkayso dhammaan waa 1 unit weeye 1 cm oo kale tusaale ahaan maadaama waa 1 aan niri dhererka macnaheedu waxa halkan goorta la joogo kan dhererkiisu waa 1 x baa 1 maadaama x la dul dhacay y-na waa 0 weeye waa x oo 1 iyo y oo 0 ah taa macnaheedu waa maxay marka waxaan soo niri hadii hypotenuse-ka ama radius-ka hadii dhererkiisu uu weyn yahay qiimaha hore waa qiimihii cosine 1 ka kan marka waa cosine si ay cosine 0 waa 1 qiimaha dambana waa maxay ee y-da ah waa qiimihii sin si ay sin 0 waa 0 weeye halka goorta la joogo 90-ga waxa 1 ah y-da ah x-tuna waa 0 weeye si marka waa 0
iyo 1 qiimaha hore waa cosine cosine 90 waa 0 sin 90 na waa 1 way halka goortaan tagno x dhinaceeda bidix baan joognaa si awgeed x waa 1 laakiin negative ah y na waa maxay waa 0 way waa negative 1 iyo 0 cosine 180 waa negative 1 sin 180 na waa maxay waa 0 way 270 hoos baan joognaa y baa waxay tahay marka negative markan waa 0 iyo negative 1 qiimaha hore waa cosine qiimaha dambe ee negative 1 kana waa sin way sin 270 waa negative 1 way 360 iyaduna isla bartii waa kusoo laabanaysaa 0 aan kuwii kale ogola marka special angle-kii oo kale 30 waan ku hormaraynaa 30 waa halkaa weeye kan dhererkiisa hadeer hypotenuse-ka kan ama radius kan dhererkiisu waa 1 maadaama 1 uu yahay pointiga halkaas wuxuu noqon doonaa cosine iyo sin anagoo adeegsanayna marka labadan triangle baan adeegsanaynaa labadan triangle dhinacadooda haddaa xafisan tahay si fudud baa loo soo bixi kartaa 30ga iyo 60ga iyo 45kaba 30 maadaama hadeer aan rabno qiimaha hore waxaan nidhi waa cosine marka cosine kan ku hormaraynaa cosine 30 maxay noqonaysaa 30 cosine maadaama aan ka hadlayno waa adjacent of hypotenuse 30 adjacentgeedu waa root 3 sababta waa root 3 over 2 waayo waxa u tagtaa sin 30 markay tahay 30 waa opposite over hypotenuse sinta waa 1 over 2 bay noqonaysaa hadeer waa marka quadrant 1 ay dhacdo quadrant 2 tag marka 30 haddii ay quadrant 2 dhacdo reference angle-kii baan haysanaa macnaheedu waxa weeye halkaa laga soo bilaabo ilaa halkaa lasoo gaarayo intaas 30 ma aha way ka weyn tahay marka la joogo quadrant 2 waxa la sameeyaa 180 baa laga jaraa reference angle-kaagii 180 haddaan 30 ka jarno waa 150 weeye waa isla qiimayaasha tan laftoodii weeye root 3 over 2 kan iyo 1 over 2 kan laftoodii weeye kaliya maxaa dhacaya waxa dhacaya calaamadii un baa isbedelaysa halka maadaama goorta la joogo qiimihii x baa negative ah qiimaha dambe y-dana waa maxay waa positive weeye sidaa marka waa kuwan laftoodii soo qaado x baa negative tan kale waa maxay 1 over 2 oo sideedii ah weeye waxaa timaadaa quadrant 3 waaxid saddexaad quadrant 3 marka la joogo marka 180 ku dar haddaan 30 180 ku darno waa 210 weeye 210 okay 210 goortay tahay si aad u hesho waa isla qiimayaasha tan laftoodii laakiin calaamadii baa isbedelaya hoos haddii la joogo x dhinaca bidix baan ka joognaa waa negative y-na waa maxay waa qaybtii hoose waa negative si aga labada lambarba negative baan qaadan doonaa root 3 over 2 negative baa raacaya 1 over 2 na waa maxay negative baa raacaya quadrantiga afraad u imow 30 haday quadrant 4 dhacdo waaxda afraad waxaa la sameeyaa reference angle-ka 360 baa laga jaraa 360 haddaa 30 ka jarto waa 330 weeye 330 raadi marka 330 si aan u raadino qiimayaashan laftooda soo qaado kaliya waxa garataa kan negative-ka noqonaya halkan goorta la joogo x waa dhinaca midig waa positive iyada sabab marka root 3 over 2 waa positive teedii weeye laakiin waxa negative ah y-da sabab marka maadaama hoos aan joogno waa negative 1 over 2 taa macnaheedu waxa marka 210 oo kale haddaan soo qaadano cos 210 waa root 3 over 2 oo negative ah sin 210 na waa maxay waa negative 1 over 2 kuwa kalena waa qaabkaas oo kale way 30 haddaan sawirnay angle kale u galeynaa 60 waa bartaa weeye halkan markan 60 baan kasoo eegaynaa markan cosine ku hormar 1 over 2 weeye marka kan sin 60 aan raadina iyadana 60 waxay noqonaysaa waa opposite over hypotenuse waa root 3 over 2 weeye qiimayaashtan aan ku shaqayn doonaa marka qiimaha hore 1 over 2 waa cosine 60 qiimaha dambena cosine 60 anagoo xeerkii hore raacayna maadaama hypotenuse-ka dhererkiisu uu weyn yahay 60 marka quadrant 2 aan geyno quadrant 2 waxaan soo nidhi 180 baa ka jaraysaa reference angle-kaaga 180 haddaa ka jarto 60 waa 120 weeye okay 120 aan raadina marka qiimayaashan laftoodii soo qaado waxaa negative noqon doona x oo kaliya qiimaha hore kaliya negative noqon doona maadaama dhinaca bidix x laga taagan yahay 1 over 2 waa negative weeye laakiin root 3 over 2 waa positive maadaama y qaybta kore aan joogno waayo 60 aan waaxid saddexaad geyno waaxid saddexaad goorta la joogo 180 baa lagu daraa 180 haddaa 60 ku darto waa maxay waa 240 weeye okay 240 aan raadina qiimayaasha laftoodii soo qaado kaliya waxaa garataa kan negative-ka iyo kan positive-ka ah halka goorta joogno dhinaca x dhinaceedii bidix isaga waa negative way 1 over 2 oo negative ah okay root 3 over 2 waa qiimihii y-na xagga hoose aanu ka joognaa sidaa ogeed iyadana waa negative labadii waa negative way cosine 240 waa negative 1 over 2 sin 240 na waa maxay waa negative root 3 over 2 okay quadrantiga afraad aan geyno quadrantiga afraad waxaan nidhi reference angle-ka 360 baa laga jaraa 360 haddaad 60 ka jarto waxay noqonaysaa 300 bay noqonaysaa isla qiimayaasha soo qaado qiimaha x haddaan eegno x dhinaca midig baan joognaa waa positive 1 over 2 laakiin y waa qaybtii hoose wey si awgeed waa negative root 3 over 2 ugu dambeyn 45ka waa maxay triangle-ka dambe aan isticmaalinaya hoose haddaa ku hormarto cosine oo kale haddaan kan oo kale qaadano adjacent-ga waa 1 hypotenuse ay root 2 wey
haddaa kaa qaadatana waa la mid mar walba waa maxay 1/2 marka 1/2 lama ogola maxaa yeelay hooseeyaha inuu root noqdo lama rabo kor iyo hoos ba root 2 ku dhufo waxaa kuu soo bixi doona root 2/2 okay tan kalena waa la mid iyadana qiimayaashaas mar walba isticmaali doona marka 45 ka aan geyno quadrantiga labaad 18 haddaa 45 ka jirto waa 135 okay ama 135 isla qiimayaasha soo qaado maadaama dhinacan aan joogno qiimaha x baa wuxuu noqon doonaa negative qiimaha y na waa sideedii wey sabab marka hadii lagu diro cosine 135 waa root 2/2 oo negative ah wey hadii lagu diro sin 135 na waa maxay adoo unit circle ka isticmaalaya waa root 2/2 okay 45 marka aan geyno quadrantiga saddexaad quadrantiga saddexaad goorta la joogo 180 haddaa ku darto 45 waa 225 weeye isla qiimayaashii soo qaado maadaama waaxda saddexaad la joogo x waa negative y-duna waa maxay waa negative labadaba waa negative ay noqonayaan waaxda afraad tag waaxda afraad haddaan tagno 360 ka jar 360 haddaan ka jarno 45 waa 315 wey 315 isla qiimayaashaa soo qaado laakiin waxaa samaysaa ka negative ka garo x waa positive maadaama midig la joogo waa root 2/2 laakiin y waa qaybta hoose negative ay noqonaysaa sida marka qiimayaashii unit circle-ka oo dhammaystiran baanu haynaa unit sababta loo yiri maxay tahay maxaa yeelay xariiq walba halka aad ku aragta dhammaan waa 1 unit weeyaan waa 1 centimeter wey dhererkeeda tusaale ahaan haddaan centimeter ka soo qaadno inay tahay circle sababta loo yiri maxay tahay xariiqaha afkooda haddaan dhammaan isku soo xirxirno waxaa samaysmi doona waa maxay circle sabab marka unit circle-ka oo dhammaystiran waa ka hada wabillahi التوفيق